dalkeena lahaano inaan dalkeena lahaano oo aan shisheeye u diidno dadkeenu sinaado oo aynu diidno danayste inaynu diidno danayste oo aynu hool ku dadaalo inaynu daacad ahaano oo aan danteena aqoono السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هبين وناسن يمالين وناسن عدة مالوتا عدة هبينوتان هبين وناسن هل كان نقص عطان وأربعين SWT في سومال ودر تي في عالم وبرتا برنامج فلقاين السياسة صدق فلقاين أرباب مش برنامج كني وهبين شبع سوقلي سوا مالين أيتها خميس بشهر أيتها ازداد لبض فبراير لبض كل لواتين أفرت برنامج كنا فلقاين تعال كوسو قادونا أوضل أهدي كتوستي هذا أوضل وقول كمية قولة الصومالية وأنا وين إلى هوست جوجين معمول كصومالان عدو لجيكا معمول كصومالان صومالي ديتكا معمول كصومالان صومالي كعركا معمول كصومالان معمول كصومالان جميس وهيليها معمول كصومالان نلك بيع نلو يبسدا أنت وأركرنا وهرب نلو يبسدا وصومالي ديت ومن مديت وصومالي ديت وإسرائيل مديت والدور الديت والدم ديت bulsho Soomaal hadaba waxaan caawa qaada dhigi doonaa maamulkaas Oodal State oo ay ku mideyseen beelaha Soomaaliyeed beesha Ciise iyo beesha maarta Samaroon oo ah dad nabadeed oo aan ku naqaano dadka Soomaaliyeed dadka ugu nabad badan dad nabadeed dad ilbaxa dad wax runtii bulshada Soomaaliyeed magac fiican ku leh Soomaalina dekeneed iyo dhibaatooyinka Soomaaliyeed dhacay aan lu ku yeelan reer Oodal way tooseen waxay yiraahdeen annagu aqbali mayno Soomaali ma weyn ayaanu ka midnahay waxaynu ka midnahay jiirkeena hilibkeena ayaanu marnaba sarif mayno cid kale na kiibin mayno sinjigeena sinjidaan noqon mayno saas ay yiraahdeen maanta waxa magaalada Muqdisho airportka magaalada Muqdisho ka soo degay wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha maamulka Oodal State oo runtii si heer sare lagu soo dhaweeyay gacmo furan oo aad iyo aad cajiiba balse waxaan jeclaan lahaa shir jiraad uu ku qabtay magaalada Muqdisho muuqaalka sarkiisa waa muuqaal kamid muuqaaladii maanta waxaan jeclaan lahaa intaan saas u sii gelo waxaan jeclaan lahaa inaan insha Allah horta aan idin tuso marka horeysa bal maanta si loogu soo dhaweeyay runtii magaalada Muqdisho si heer sare gacmo furan shir uu qabtay magaalada Muqdisho shir jiraad uu ku qabtay ayaan daawad doona dabeetana falaqaynta ayaan shacabka Soomaaliyeed u deey doona halkaan nagala socotaa warbaahinta SWT Soomaal wadani TV wala barata barnaamijyada falaqaynta siyaasadda يفرقين برمها بالشدة هذا أنا قصان أنت بدل ما نوقف برتان وأنا ديرت صارنا وحياة ذلك ذلك الصومالي أنفعي سمر كاسم دور المال الصومالي أنفعي وجو أنا مرنا بكمة تيرسنين ما نني نهاية ذلك نحدو نقال كراي أما دنا جار هارد وشقي أم عيد جار تاجر لكن وعم تاجر سنة وعيتاي سيدا ما كارت الصومالي ما ودني ذلك يصير ذلك الصومالي دول نمدو ذي الصومالي نمدو وصعالي سمر كاسنا أيون نقالهين ذلك كودا runtii mustaqbalka dadkooda meel uga soo wada jeesta ismarkaasina midnimadoodana noqoto mid maarata dhabaha la rabay ku istaagta hadaba aan daawano madaxweynaha maamulka Oodal State oo aan rajeynay runtii aad iyo aad si heer sare ugu sareysay in lagu soo dhaweeyo dabeetana shir jiraad uu qabtay baan dhageysano oo soo noqon doona kadib falaqaynta ayaanu geli doonaa waxaanu qabnaa oo runtii
dareenka iyagu yahay ummadda biicadda aad ku nooshahay waxay doontaa ha noqoto dad ha noqoto geed ha noqoto xoola ha noqoto bad ha noqoto beri ha noqoto mas-uuliyad baa kaa saaran sideedaba haddii aad dareemi weydo mas-uuliyadda kaa saaran biicaddaada iyo dadkaaga dee ma noolid markaa ma jirtid waxaan qabnaa annagu qaranku xaq yuu inagu leeyahay inaynu difaacno xaq buu inagu leeyahay inaan difaacno taariikhdiisa maxaad difaacaysa waa maxay waxaad difaacaysa taariikh baad leedahay meeshay doonta ha ka timaado xuduud baad leedahay xuquuq baad leedahay wax kasta oo aad ku nooshahay xaq buu kugu leeyahay haddii aynu taa difaaci weyno ma jiro marka anaga waxaa naga dhaadhacsan maanta qaranku wuxuu u baahan yahay hiil wuxuu u baahan yahay difaac inta aan noolahay inagu waajib bay inagu wada tahay mid kastoo inaga mid ah inaynu qarankeena difaacno qarankeenu maaha iib qarankeenu wuu inoo baahan yahay waxa nolosha bini aadamku tahay waa biicadiisa iyo dadkiisa dhulka aynu ku noolahay qayb ka mid ah waxaa la yidhi waa la bixiyey iyadoo cid lagala tashan qaybta ka mida waa awdal waa dhulkaan ka soo jeedo qaybtaas keliya maaha meel kastoo kalena waa la bixin karaa haddaynaan wax ka qaban haddaynaan kicin oo aan soo maaragtay sidan u fooraro oo laga faa'iidaysto burburkeenna iyo kala jajabkeenna meel kasta oo kale waa la qaadan karaa waa runtii madaxweynaha runtii hadal cajiiba oo taabtay waxaad moodaa halkii barti looga baana inuu dhigo haddaba falaqayntu waa xaggiina balse ad waratiin reer owdal runtii waa istaageen waxaan arkaynaa inay reer owdal dareenkooda shucuurtooda hore u muujiyeen laakiin saa arkeena waxay soo doorteen madaxweyne isla markaasina waxay doorteen hoggaan ay raalli ka yihiin haddaba dowladda federaalka maxaa laga rabaa waxaa laga rabaa waxay tahay inay kor u qaado isla markaasina ay si toosa dhaqaalihii ay sii lehed iyo sidii ay u tabantaabi lehed isla markaasina deegaanadooda xorey lehed inay dowladdu garab istaagto taas ayaa waajibaadka inay la dhisto ciidamo inay dib u habeen ku samayso sidii dadka deegaankaas joogaay u noqdaan dad ayahoodii ka tashada danahoodana si toosa dadkaasi iyo baahidooda dowladdu si toosa ay ula xiriirto halkii ay madax salaax u heli jirta qolada soomaalidiidka ee ka carara soomaalidiidka ee cadowga soomaaliya la saftay haddaba waxaa inoo ballaman waxay tahay in dadka soomaaliyeed madaxweyne wuxuu yidhi dadka dowladdu in loo hiiliyaa loo baahanya iyana inay u hiilisaa loo baahanya dowladda haddii ay maanta soo garab istaagaan dowladdu way soo dhaweynaysaa waxaanu ku rajoweyna ayadaa ku qasban walow ogsoonahay inay wax badan ka gaabisay laakiinse waxaan xaqiiqa ah in reer owdan ay yihiin kaalinta looga baanaa ay runtii ayaga laftooda laga rabo inay istaagaan ka dhidiyaan u dhidiyaan maanta waxaa la taagaya in la iibsado dhul keliya lama iibine dadkaa la iibsay reer owdanaa la iibina maanta heerkaasaa maraysa adoo nool in lagu iibsado waa ayaan darro bal caawa waxaan rabnaa ka qaybgala u horeeya waxaan jeclaa reer owdana caawa ku cusubin doona ka qaybgala u horeeya halo asalaamu calaykum halo calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu ku soo dhawow Soomaali Wadani TV halkaa joogtay magacaada adigoo maasan barnaamijkan hore u gal markaas kadib haddaad la socotay nuur camar hiba nuuro joogta xamar hiba nuuro ku soo dhawow barnaamijka waan dhawahay maasha allah hiba nuuro haye maanta waxaa yimid magaalada muqdisho waxaa yimid madaxweynaha awdal state dowladdu heer sare ay u soo dhaweysay oon ka dareemi karno inay dowladda weliba telefishin qaranka ay ku soo qaadatay ayadoo arkayso inay aqoonsi miis ku saaran yahay ma moodaa reer awdal way soo daaheen oo way ka gaabiyeen oo way soo daaheen laakiin hadda lafteeda ayaa in la garab istaago loo baahan yahay misleda may haa aniga soo dhaweeyaashaan ka mid ahay cali baxar annagaa soo dhaweynay annagu in adeerkee yahay annagu madaxweyne noo yahay annagaa dooranay iminkii haddana dowladda sharafta leh waxaa ka codsanaynaa inay saa ugu dhaqsiyaha badan lanoo aqoonsato annaga dhulkayagu beec maaha baddayadu beec maaha berrinkayagu beec maahan marka dowladda waxaa ka codsanaynaa inay saa ugu dhaqsiyaha badan lanoo aqoonsato cali baxar iyo mas-uulada nagu matala dowladdana waa u mahad celinaynaa maanta sidii loo soo dhaweeyey kawar cali baxar sidii dowladda lafteedu xubnihii dowladda ka socday
iyo mas'uuliyiintii kale ee dadka reer awda ee degan magaalada muqdisho si ay u soo dhaweeyeen ka war dareen cajiib la soo kuma ما شاء الله علي إبراهيم بحر سفي أنا لو سو دوي سفي أنا أسو دويني إلا يهول كتياتر سفي أنا أسو قلبني ما شاء الله وركي سفر حدا ما تدريميني reer awdal shirar ay leeyihiin ayaa nagu soo foodlay ayaa la leeyahay iyadoo la rabo inay shirweyne ku qabsaan magaalada muqdisho sidii maarata loo dardargelin lahaa maamulkaas awdal state dowladdan maamulada kale ee waddanka ka jirna waxay ula qaybsanayaan arrinkaas mid soo gaarsay goormays arrimahaas u dhici doona diyaar way dhacay doonaan insha Allah waan rajaynaynaa way nagu soo food leeyihiin ugu dambeyntii marka adoo ka faa'iidaysan reer awdal la maxaad dadka fariinta reer awdal aad gaarsiin lahayd inay dalkii dadka Soomaali ay difaacdaan kuwa Soomaali diidka midnimo diidka maaragtay gumaysi u hiliya Soomaali ka baxa maaragtay isha kuwaas maxaad iyagana dhiileed bal adigoo markaas cabiray aragtida ay sheegayaan horta reer awdal waxaan leeyahay waqtigii hore hadda waa laga soo tagay oo qabiil ma gumaysto nin uma taliyo reer awdal hadda ka hor 3 qodob u sheegay sanad ka hor waxaa yiri ama dhinta ama maxay haydaanay ama dhulka ka guuro Itoobiya gal ah ama sidii awal balaynii gumaysan jiray halaynii gumaysto ama dhimashada iyo dhaawaca ogolaada marka maanta qodobkii ahaa dhimashada iyo dhaawaca ogolaada ayay soo raaceen geesinimo iyo gobonnimo ay muujiyeen ma sha Allah marka dareen ay gelisay badda lagu hayo iyo saylac midna beec ma noqon karto ma sha Allah wallahi sida u kacdeen imikii hadan halka ka sii wada calana loo gablamin guudka lama Suudaan leeyahay الله يعيسك dhalinyarada jaamacada wax ka bartay reer awdal ee muqdisho degan arrinkan jawi sidee u soo dhaweeyeen ama dadka degan deegaankaas degan ee muqdisho degan reer awdal ka soo jeeda dareenkoodu maanta sidee buu ahaa markay arkeen madaxweynuhu si heer sare ah dowladda Soomaaliya soo dhaweysay dadka Soomaaliyeed u riyaaqsiin arrinkaas maxay ku dhalisay wallahi waxay nagu dhalisay ma aragtaanay farxad badan iyo raarayn badan ay nagu dhalisay caawada waxaan ku rajo weynahay in aan dawladda Soomaaliya kamid nahay oo ay Saylac iyo Boorame iyo Gabiile iyo caawa ay kamid yihiin Soomaaliya ayaan caawada ku rajo weynahay lanka gudaha waayay waxa jirta jabhad dadka maamulkan hoos tagta isla markaas u dagaalanta sidii ugu hiriyada maaragtay kuwan gumays raaca sidii maaragtay ugu xoro lahayn deegaanadaas arrinkaas sidee u socdaa sidee u socdaa horta muuse Soomaalidu maxay tiraa agti joogsi diidaa mar bay ceeb la kulantaa wada carabkiisa gooyaa ninkii laba canleeya ninkan horta agtiisa joogsi waa diiday imikii hadana ceebti ugu weyneedu cagaha kula jira ma sii raagaya isaga warkiisu basiid waayo waa la saari karaa hadii loo kaco wali waa lagu keenay ما شاء الله marka alle hore loo socdo marka taageerada loo muujiyo dadkuna maxaa leeyahay jabhaduna dadkuna reer awdal dibadaha dadka jiray oo jaalida maxad ugu baaqleen kuwaas ayaga laftooda in loo baaqo inay garab taagan hal wadaan leeyahay ayaana dawla tuskan iyuna been noqonaa leeyahay dawla tuskan si fiican ha looga dhabeeyo bartaas ha laga wado diiqada cagaha ala galay hal mar kala baxnaa leeyahay الله يعيسك waxay tahay marka arrin daruuriya in dalka la difaaco dadka Soomaaliyeed dadka deegaankooda dadka laga difaaco cadawga shisheeya dhulku gacanta u galiyo raba aad aadan kaaga baxilna waa shilin loo laalaabay way anaga shilin iyo dollar iyo maxay aydaanay nolol maalmeed dhulkayga siisan meen hantida ma guurtada anaga xoolo kale ma balihiin ba xoolo kale oo meel noo daaqama ba jiraan badda Saylac iyo badda Luqaa biyaha meesha noo jooga anaga xoolo noo aba hadduu isiri biyaha gadna برينا أنا قلنا قدي دونا أو بريا كنت دونا قدون كذا نفتح يدا كنت أدو روكي كذا أدو روكا دور سالم تعنا وهو كذا أنا واقدنا هاي بريا من قدنا يعني قبا وما سنتها هي بالنور هذا كامل عنا أدي هذا كامل عنا هل كان نقرأ صوتها وأربعين اس دي بي تي في سوالف بالدي ودر تي في الله برتب رمشة ودري أنا عيدين السلام عليكم قابلكم هلا السلام عليكم والله سلام يا هلا سمسم زمزم رايك كيما سكرها
سمسم زمزم سمسم أمريكا وين زمزم كسر سومال ودر تي في هيه waan ku dhowahay aad baan kaaga mahad celinayaa adiga iyo ummadda Soomaaliyeed ee qadiyada dhul wadanka Soomaaliyeed u istaagtay dal iyo dibadba aad baan ugu mahad celinayaa aniga waa reer awdal baan ahay dadka ay qusayso sheekadani baan ahay ee qadiyadu inay u istaagaan hay Soomaalina taageerto hay ka go'an tahay baan ahay waajib ku tahay صح marka waxa weeyaan anigu waxaan joogaa America kontonka state waxaan u sheegay horta dadka reer awdal waxaan u sheegay gudaha jooga kontonka state ee America ka kooban tahay shirar baas ka socday bishan oo dhan bishii dhammaatay oo dhan shirarkii waa la soo gabagabeeyay go'aanadii ugu dambeeyay baa weegan la sheegay weegan ama weegka dambe marka diyaar weeyaan way isku xidhan tahay ummaddu dal iyo dibadba qurba joogta reer awdal way midaysan tahay dal iyo dibadba waxayna sugaysaa dhawaaqa dawladda Soomaaliya ka soo baxa un baan sugayno dhagta u taagayna ee dhaqaaliya dhan walba hadda waan ka dhisanahay ما شاء الله ما شاء الله wax aad loogu farxo waan wax la soo dhaweyn maanta waxaad arkaysaa madaxweynihii awdal state in si heer sare dawladii xukuumadii shacabkii dhalinyaradii Soomaaliyeed ee reer awdal ama awdalka soo jeeda in si heer sare cajiib loogu soo dhaweey magaalada Muqdisho waxa arkayna TV qaranka oo soo qaatay waxa arkayna in loo sameeyay lafteedu barnaamijyo waaweyn marka arrinkaas maxaad kala socotaa سياسة دريميسا محسن دريميسا دولة سماما تاي إني لا يكسي حتى لفتير دولة لفتير إني يهرد ديسي يكسي حتى ما أمر كان ما تفضيت كوضك سوى يبسني أي وشغيني صد مويس ما سلاح يسمى ما مودة إني وضدي وأنا سري كسر على دولة dawladdu way ku soo dhacdo hadda waxa weeyaan nin la tumay tala joogtaabay Soomaaliya ku mahmahda صح hadda waxa weeyaan wax maanta u haray oo qofku hadduu dhulkiisii la damcay ama maxay haydaanay la rabo in la qaato oo maalin walba Abiy Ahmed uu ku soo celinaya Ethiopia maalin kasta uu ku soo celinaya inay ka go'an tahay marka wax la dhowrtay ma jiro halka ugu dambaysa la taagan yahay dawladda Soomaaliyana way ku qasban tahay hana noo dhaqsataan leeyahay marka maxay haydaanay waxa weeyaan jiritaankii ummadda Soomaaliyeed hadda maanta gobolka awdal buu ku xidhan yahay صح marka gobolka awdal hadii shay la adkeeyo maxay hayd oo dawladda caalamka Soomaaliya laga taago wax rajay leedahay ummadda Soomaaliyeed rajay leedahay si hadii halka looga soo dhaco laakiin awdal dadka degan waa dadka Soomaalidu aqoonta badan dadka Soomaalida u jecel oo dilay rajayl Soomaali meesha kaliyo jacaylka wadnaha Soomaaliyeed ku yaalo reer awdal dadka Soomaali ugu walbaxsan dad aad runtii qiimo weyn dadka Soomaaliyeed kula wadanadu aad kula weyn tahay aan Soomaalida dadka taariikhda xun aan raad aan ku lahayn dadka Soomaalida meesha ugu wanaagsan bay kaga yaalan waana dadka Soomaaliyeed dadka ku dhartaan ay kamid tahay marka iyaga laftooda ma mooda inay jiifeen oo u dhignaadeen in ay cadawgaas u ka iibsaday inay yara isiraadaan arma lagaga dara armaas xaaladda ku noosha lagaga dara lafteedu ma mooda inay ka gaagabsanayeen waa laga gaabsaday waa hor dad badan waa u kaceen oo awdalsteed dhowr sano 10 sano ka hor baa la aasaasay waxa uryaamiyay maxay haydaanay u dhaqaaqi weyday waxa weeyaan xagga Djibouti markii hore kamaan dhisnayn hadda ahaan waa ka dhisanahay oo kalsooni baan ku qabnaa intay leegtahay ma ogaan karo صح sidii hore way dhaantaa xaggan kale Ethiopia oo Tigray haystay oo ciidamada iyo wax walba maxay haydaanay soo celinayay oo Ethiopiana may كمان هيسن محيدان تاجرو أو إثيوبيا نكان موسى واحد معمول كان الصومالي ديتك وحكوا هي ماشي وإثيوبيا صح تجراجا مركز يبقى تبضن أبان هاي ستة مركز عدايس ما دنيا بدأ كيس اللي ذا علاس كاس يا دنيا بدأ كتاجر شبهاد وبر سلطان هو هنا قبل كأود الروب بحي مكا 2014 كيبو بحي أو إثيوبيا كسو شبهادكم معمولاي قبل كان كدقنا إن هرول قيرها أو جبهة كسمية جبهة دي وح صاف شرائع صور دباتي وحويان إثيوبيا تجراجي مركا وتاجر ومركي هراء الحاسد ضدو حناهين محيد ميل تشيليس كجري مركا ضدكنا وحي كجونا يدون إن دولة الصوماليين تلقى لهلا يو إن بدقلية ده لو صير نولاده
marka aaw waxaas qabsada leeyahay reer oodalo toosay oo deegaano ay maanta deegaanada xor ah la leeyahay oo markaas gacan ka helay dadka Soomaaliyeed sida Djibouti oo kale dawladdiina ay u soo jeesatay marka waqtigooda timeka suuqeen waa taagan leedahay marka gudaha maxaa farleed dadka gudaha jooga maxaa farleed marka inay san cabsan ay ka dhabeeyaan inta soo loo baahan sida ay maalin dhaweyd u sameynayaan barnaamijyada sida bilan gobonimo aan loo dhimanay lama dheefsadee hadda caburin badan baa lagu hayaayo ciidamadii wixii yaray ka hadhay gooja caddo oo dhan iyo macawslii baa la geeyay gobolka Awdal oo meel walba buuxa oo isaa u dhex cararaya magaaladii Shirdoon waxbaa lagu sii daayay marka waxaas waxba ka tirimayso nin dhulkiisa umba soo hara waxba ka tirimayso fariintaan u farayo waxa weeye jeelinimo qaado waa ka badan tihiin oo milyan dad ku nool gobolka Awdal waxa weyn jeelinimo qaado banaanka soo joogsada ninkii saacadiisu dhinta oo gashoon baa dhimanaya inta badan iyo baaqiga hadhaya marka qadiyadiina u istaaga xalay waxa maanta waxa laga sheekeynayay in Etoobiyaan yimaadeen Hargeysa oo ay ku shirayaan saraakiil Etoobiyaan oo siinayaan maxay ahayn tareerina siinayaan maxay Musabbix iyo ninka ciidamada haysta waxba tirimayaan nin dhulkiisa وما سنتهي وما سمسم هذا كلام عندنا قولوا سمسم طيب الصوماليات بن آد مر لبعضهم هالعلمية هي دولة الفدرالك وحن لها هاي دولة الفدرالك ونقصدا وحويا كالنتا بنان هلا أوضة قبل كأوضة الله يعز قولوا سمسم انت يقعد حساب الله يعز قولوا ويريد الكلام السلام عليكم السلام عليكم السلام والرحمة أحمد أي مقعد صاحب وماسن أحمد مقعد وحاوي فارح معلم لندن UK فارح معلم كسر وضو ماسن صاحب فارح معلم بدل بوطن كدعي وذركيسا أول استاد مسؤولين تيم مدحوني أول استاد هم قصوا تجي هير سير سنة دولة سورة ويسي وحنا كنا إني أرنتار الغاضي مرك أرنكاس بحاس سيد ولا تام حاسة كديله ضو ماسن waxaa marka hore sirta aad iyo aad sharaf u leh dawladda federaalka iyo shacabka reer Muqdisho oo markastaba Soomaalinimo iyo sharaf baralba ay ku dheehan tahay cid kastoo Soomaaliba doonaysa qarabo doonaysa soo dhaweeya waxaan ogahay maamulka SSC sidii Muqdisho lagu soo dhaweeyay tanna waa Awdal State haddaan u guda galo Awdal State way soo daaday horta way soo daaday aad bay u soo daaday صح mar hore aan doonayn in Muqdisho iska helaan waa gart sidaa darteed madaxweynaha Awdal State sida maanta uu yimaaday sharaf iyo ciise u tahay ummadda Soomaaliyeed laakiin waxaan ku boori lahaa madaxweynuhu in shaqada loo idbaday halkeeda uu ka sii wado maamulka tabarta daran ee Hargeysa jooga Musabbixina inta ka dhabar Israaciyo la soo noqdaan sharaf iyo ciisegoodii shacabka reer Awdal la soo noqdaan iyo dawladnimadoodii dawladda federaalka garabkeeda iyo shaqadeeda ay siiso maamulka ay soo dhaweyso dalka markii hore 18 gobol buu ahaa haddana sidii gobolayso buu noqon doonaa insha Allah Awdal State ka mid bay noqon doontaa midda labaad shacabka reer Boorame waa shacab mar walba Soomaaliba ku dheehan tahay ilaa xorriyadii Soomaaliya inta la qaatay ilaa baanika maanta mar walba Soomaaliya u taagan bay ahaayeen waanu ku ogsoonay haddaan reer Soomaaliya dheer shacabka reer Boorame ee dad noocaas ahaayeen صح sidaa darteed Awdal State welcome baan leenahay ku soo dhawaada caasimadii dalkeena ummadeenii dawladeena ما شاء الله ما شاء الله ودنبيتك marka faaraxow adigoo maasan jaalida dibad joogtay iyo dadka reer Awdal gudaha joogay maxaad fariin u farle dawladdu oo u sheegtay jaaliyada reer Awdal haday gudaha dibadda joogaan waxaanu filaynaa wixii dhiman insha Allah Soomaali baa dhameystiri doonta dawladda dhameystiri doonta dalka Soomaali baa leh xeebta lugayad Soomaali baa leh Soomaali mid baa leh dalka waa dal Soomaaliyeed kaligii ma noqon doontaan insha Allah Soomaaliba garabkiina taagan laakiin mid xigta waxay tahay inaad gacmaha isqabsataan inaad gudihiina midoodaan inaad mid noqotaan inaad ku xidhnaateen dawladdiina federaalka iyo caasimaddiina Muqdisho الله يعيسى قول ما شاء الله qabiilkuma dhisnaa inta iga dhex saartaan dhirtayaan la jiifinoha yaanan dhaxal wareegine dhirtayaan la jiifinoha yaanan dhaxal wareegine iga dhiciya waxaan rabin iga dhiciya السلام عليكم وعليكم السلام صاحب كسر سمال ودن تي في هذيك وماسن
السلام يا أستاذ. welcome saaxib marka horeysa adoo maasan aad u dagaalka kaga jirtaa dalkiina aad ka dhigtaysaa. ha walaal kusoo dhow aragtaada fikirkaada maxaad leeleed adoo maasan walaalow dalka dadka Soomaaliyeed mikrofoonka afkaada u dhawey saaxib adigoo maasan waa ka fog taayara dalkan Soomaaliya ilaahay inagu ina siiyey dalkeena inaan difaacano meel kastaan joognana af iyo adin waa mas'uuliyad qof kasta Soomaaliyeed Soomaaliba ma tahay dalka adiga dalkaaga marka inaad difaacato cadow ka difaacatid waxa ku saaran dad ka jinsatidna dambiila tahay waxaad la mid tahay ninka dalkiisii iyo dadkiisii dayacay raba inuu kula shuraakeeyo cadow soo jireena oo aynu weligeenba lahayn sax waxaan u baahanahay in arrinkaas meel looga soo wada jeesto waxaan hadda wararku ku soo baxayaan markuu ka baqay deegaamadii lughayo dadkii iska lahaa iyo dadka Soomaaliyeed oo u soo hiiliya in hadda uu ku xaafadooda oo reerihiisu deganaayeen dalka Soomaaliyeed bay dadku reeru laftooda isma dul saaro magacayga guuday wadaagaane laakiin reerba meel buu leeyahay reerba meel buu deegaanka ka leeyahay warku ay ku soo gaaraya oo la yar baqay oo hadda reerahoodii buu leeyahay dhulkii deganaayeen baan idinka siinayaa nimankii abi iyo Ethiopia marka taa qudheedu deesutay halkaaba dad Soomaaliyeed oo maya dhulku waa naga wada leh meel gaar qolobo meel degto laakiin dhulku difaac naga wada rabo waa dadka Soomaaliyeed iska wada leh aad iyo aad marka ninka iyo labada nin ee wareersan dalkeena insha Allah waa ka difaacanayna dawladda Soomaaliyeed unba waxaanu jeclaan lahayn inay talaabooyinka naxariista leh ay qaadayso inaysan qaadin ay sida cadaawadda leh ee Ethiopia u dhaqantayna iyaduna u dhaqanto waa gartay madax salaaxi ay wadi jirtay dawladdu oo ay ka jeesan jirtay maamuladan kale dadkan Soomaaliyeed aad ogtahay inay dawladda lafteedii ma moodaa inay lafteedii miir ku soo noqdayo ay moodo inay hadda waagu bariyay oo talaabo loo baahan yahay xawli inay qaado oo dadka deegaanaas degan si garab dhan walba u garab istaagi lahayd si dalka loo badbaadiyo soo wax waajibaad ma بالحقيقة واجبات صارن دولتنا واحد مودا إني جذه أبابل كذا يصير الدبادة دجال وقعتي إني سن جذها دجال أيسن كبلا أبابل تلابين كل في الدولة ما يقعدنا ما نقدرنا يصفوا وقعدنا وقرت مركب أبابل بدل على جرب هذا أبابل يكعين يبرجين وحنا نقول إني كتاع كويس أي على جرب مركب أنت سوي كجيفتا وحلو بقى إني تلابين weliba in ciidamada laftooda qayb ka qaato si dalka loo difaaco marka waxaad leedahay xaggaas way ka jiiftaa dawladdu waa in lafteedu waagu ay soo miir ku soo noqdaan leedahay absolute dalka gudihiisa looga baahan yahay inay abaabulka ka gasho oo dadka kiciso oo dadka la abaabulo oo gudaha waxa weeye waa in la mideeyo chance baa yimi midnimo Soomaaliyeed iyo qulubta Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo waxyaabaha midnimada keena marka cadawgeenu yimaado oo shucuubta iyo dalka lagu dhisay chance inay dawladdu ka faa'iideysato aniga ii muuqda aad iyo aad kaaga baahan magacaadan iimaad sheegin iigu cili mar labaad adigu maasan aniga walaal Cabdifatax Daahir baa la yiraahdaa Cabdifatax jooga Norway Oslo ما شاء الله Cabdifatax aadam kum salaam saaxib waa kaaga mahad celin waqtiga qaaliga weli sabraad salaam مرة بعد يمرس حد وحد لنا هاي الو السلام عليكم وعليكم السلام صاحب مقعد يلك هجوكتو waxaan joogaa Switzerland magacaygu waa فرحان ورسمة السلام يا هذيك iyo dhamaan mujtamaca Soomaaliyeed ay nadaawayaba الله يعيسى ku soo roo farxan aa barnaamijkeena falqaynta ku dushan ka saarnay Odol State maamulka Odol State iyo talaabooyinka isku xirnaanta ee dawladda isagu ay wada qaadeen ee dawladdu heer sare u soo dhaweysay haye maxaa areega talaada tala bixintaad maxay tahay adoo maasan
runtii horta waan salaamayaa maamulka awdal state especially doctor baxar iyo wafdiga la socda dowladda soomaaliyana waan uga mahad celinayaa soo dhaweynta ay soo dhaweeyeen runtii shacabka waqooyi dib buu qabay inay wax dhistaan ay wax samaystaan bay isku dayeen markii burbur dowladeed ka dhacay Soomaaliya inay dadkooda isbadbaadiyaan iyagu dhexdooda kala badbaadaan bay wax u samaysteen laakiin wixii ay u samaysteen niman cashuurtii dowladda wax ku soo bartay oo ahaan 60 jir iyo 70 jir iyo 80 jir ah ayaa shacabkii hor yimiday kuwaasoo kala fanquuqay runtii 32 sannadoodna aad moodo inay maskaxiyan burburiyeen da'yartii Soomaaliyeed ee u dhalatay gobolada waqooyi taariikh ahaan nafta way lumiyeen soo lama dhihi karo taariikh ahaan hataa dadka way lumiyeen oo taariikh aan jirin oo waxba kama jiraan ay dadka Soomaaliyeed 30 sano kula dhex wareegayeen iyagoo danahooda gaar eeganay absolutely manahij ay qoreen ay maskax bugta ay qortay ayay da'yarta gobolada waqooyi loo dhigaa waa ubad Soomaaliyeed waa halis ku wajahan dhammaan bulshada Soomaaliyeed waayo inanka muqdisho ku dhashay iyo ka baydhabo ku dhashay iyo ka kismaayo ku dhashay iyo ka awdal ku dhashay iyo ka hargeysa ku dhashay iyo ka burca ku dhashay dhammaantood waa inamo Soomaaliyeed manahijta bugta iyo fikirka buka ee 32 sannadood ay 60 jirada da'da ah ee ku soo tababartay cashuurtii dadka Soomaaliyeed iyo dawladdii dhexe ee qarankii Soomaaliya ka burburay uu waqtiga iyo maalkaba geliyay inay halis ku noqdaan dadkoodii oo ay bulshadoodii da'yar tahay khalkhaliyaan ku abuuraan naxli iyo cuqdad iyo xumaan deris iyo Soomaaliba ay u qabaan inay isirkoodii iyo nasabkoodii ay halis geliyaan runtii waxa uga dawaa bulshada Soomaaliyeed baan islaahay in dawladda Soomaaliya ay taageero siiso maamulka Khaatuma State iyo kan Awdal State hadda curdanka labadaba ma moodaa dawladda lafteedu kaalinteedii way gabtay oo hadda ayaa waagu bariyay markii ay madax salaax iyo maslaxa aan waxba ka jirin sida ay qolooyinkaas u sameeynaysa ma moodaa inay ku habsaameen waa kamahay waa dawladda markasta sabaqare Sheekh Shariif maxamed Abdullahi suuq wax badan bedelka muu haysan laakiin Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh markiisii hore iyo Farmaajo iyo hadda uu Xasan Sheekh dhammaantood way hakradeen shacabka gobolada waqooyi waxay wakiil uga dhigteen shakhsiyaad kooban oo xataa matalin kuwa ay sheeganayaan ama nasabka ay sheeganayaan isaaq aan matalin bay wakiil uga dhigeen bulshadii Soomaaliyeed ee deganeed gobolada waqooyi waxay ku tacadiday dawladda dhexe Soomaaliya rabitaankii iyo hankii iyo Soomaalinimadii iyo himiladii ku jirtay ummadda waqooyi ku dhaqan bay ku xadgudubtay hadda maxaa laga rabaa marka in laga faa'iideysto oo fursadihii lumayna dib loo soo nooleeyo arrintan wax laga qabto jaalida gudaha dadka Soomaaliyeed gudaha jooga reer awdalna aad tala hadda u jeedinayso iyo haddii aad jaalidaha dibadda jooga u jeedin lahayd insha Allah adoo maasan runtii dhammaan daayarta aqoonta u saaxiibka ah ee reer awdal waxaan oran lahaa waniyow dadkii xaruntii xadaaradda ilbaxnimada boqortooyadii awdal empire saldanat alcadli baad kusoo jeedaan idinka dhismihiinu waxay dawo u tahay ummadda Soomaaliyeed isku tashada dalkiinu waa buuxaa waa se la faqaya maanta macdan baa laga guraa meesha la xariirad macdan baa laga guraa uranium baa laga guraa baabuur waaweyn oo iska rogooyinaba yaa qodobkaas ku haya oo xuduudda Djibouti galaya maraakiib baa u taagan oo China loo raab uraniumka cidda halkaa deganna xataa xoolihii baa ka dhammaaday sidii ay siiga iyo board baabuurta waaweyn maraysaa meesha ay ugu ridayeen xoolihii ay qodeen ee carrada laga qoday bay xoolihii iyo dadkiiba ku daateen oo halis ay ku qabaan arrinta labaad ee soo raacday waxa weeye macdantii baa la guraya oo shirkado kale China baa la keenay gobolka Awdal oo simoodi ka guraya waxaynu u baahannahay macdanta la xaabsanayo idinka xaq u leh inaad gurataan idinka xaq u leh inaydu liisanayntaad u samaysataan aad iib geysaan oo idin ku nafaqaysaan dadkiina iyo deegaankiina inniga xaq u leh inaydu daara ka dhistaan waxa aad maanta siigada kilahaasa iyo dhibka uu inaga soo gaadhay wax manafacada ay inaga soo gaadhay waxaad leedihiin buuro ay macdani buuxdo waxaad leedihiin dhul beereed ballaaran oo wax kasta ka baxo waxaad leedihiin bad xeelile oo dheer baddiinana waxa ka kalluumaysaa waa shay macdankiina waxa gurtaayna waa shay xataa dadka
maamulka hargeysa soddonka sano dadka madaxa kaga fadhiyey waxa uu ka burtaayay waa shakhsiyaad kooban weeye bulshada halkaa degan ee isaaq waxba kuma qabaan waxa wax ku qabay waa shakhsiyaad kooban oo jeebadooga ay ku dhacdo waxaasi dadka waqooyigu khaasatan inta idin soo xigtaa ree awdow idinkayna soo raacayaan saldanatan cadli bayna hoos imanayaan awdin state ba hoos imanayaan war maamulkiina ka shaqeeya sumadiina ka shaqeeya magaciina ka shaqeeya miisaankiina iyo badbaadadiina waxay ku jirtaa inaydun awdin state daba istaagtaan inaad la shaqaysaan maamulka mataqaanaa doctor baxar aad la shaqaysaan jaaliyaha marka dhanka jaaliyaha dibadda ayadana maxaad far leed adigoo maaso adigu la soo kamid tahay maxaad far leed inay gudaha runtii jaaliyadda dibadda waxaan fari lahaa waxaa idinka muuqda tala xumo fara badan iyo baahsanaan baa idinka muuqata maanta waxaydun taagantihiin albaabkii guusha inaydun guulaysataan dad ahaan iyo deegaan ahaan iyo dal ahaanbaba iyaad albaabkeyga taagantihiin inaydun is-abaabushaan taageertaan maamulkiina dhaqaale iyo maal iyo talo iyo muruq intaba aad la garab istaagtaan anad xuduudihiina mataqaanaa ammaankiina sugataan walaalihiina ree hargeysana intii idin soo raaci karaysa aydun soo goosataan welcome tirahdaan aad iyo farxan waa kaaga mahad celina waqtigaada qaaliga saaxiib guulaysan waa aad iyo aadan kaaga mahad celina hore u soco insha allah وعليكم السلام aad ciise maasha allah barnaamijka halkeena noogu socon doona insha allah soo dhawow saaxiib magacaada halkaa joogto adigoo maasan magacaada halkaa joogto waxaan joogaa axmed aa la dhahaa manisooraan joogaa axmed barnaamijka ma la socotaa saaxiib aad iyo aad ay axmedow hore u gal marka caawa haddaad talo fariin tala soo jeedin state waxaan waa farxad weyn waaye in la aqoonsaday yacni waana arrin muhiim oo loo baahnaa sax oo meeshaas waxa ku baaba'ayo yacni qoladii raadinaysa dadka keliya oo raadinaya goonigoosodka waa gartay reer waqooyiga oo dhan ma ahayn dadkii raadinaya inay goonigoosod soomaaliya ka dhaca moogtahay koox yara raadinaysa koox yaroo ku qoraaminaysa magacaas goonigoosodka exactly xataa lama oran karo qabiil sax wixii marka ay naga soo afjareen way ku mahadsan yihiin reer oodan siday isku mideeyeen oo sax arrintaa uga shaqeeyeen dowladdana aaday ugu mahadsantahay dowladda soomaaliya maanta ka jirto fursad qaalidoo soo marta soomaa dowladdu lafteedu ay ka jiiftay ama la rabay inay mar horeba arrintan kiciso oo ay garab gasho oo ay maanta maamulka ay inay mar hore garab istaagto wax loo baahna soo maahayn aad iyo aad laakiin wax walba waxay leeyihin wakti ma ogtahay marka waktigooda yimaadeen aad leedahay waa garta marka caawa tala iyo tusaale haddaa ujeedinayso maamulka maamul curduro waaye ku mahadsantahay tala haddaa ujeedinayso maamulka maamul curduro waaye haddii aad tala iyo tusaale ujeedinayso dadka ka soo jeedaahay adiga ku taallaa waa maamulkan horta dadka ka soo jeedo waa dadkii miidda soomaaliyeed waaye sax waa isku raacsanya taas aad iyo aad I believe waxaa aaminsanahay maamulkan haddii aan garab istaagno haddaan nahay ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kasta aan joogno inay noqonayaan niman role model oo lagu daydo sax because dadka meeshaas degan awdal waa dad aqoonta u saaxiiba waa dad nabad u saaxiiba sax waa dad ilbax ah oo yacni ilaa iyo 1400 oo sano ka badan ilbax ahaa waa sax waa dadka Soomaaliyeed oo iskugu mid yahay oo kala jeclayn oo iskugu mid yahay oo deegaankooda deegaan lagu nabad galo oo dadka Soomaaliyeed laga jecel yahay hawliba dad sharaf la badan ah ma sha Allah exactly oo aan go'an wixii la soo dhaafay iyo wixii ku dhacay sax waa ogtahay 91kii markuu burburka dhacay in gaboodsi ba'an lagu sameeyey oo beesha ugu horreysoo la gumaaday ahayd gumaad loo geysto oo kunka dad gaaraya welina maanaan ka maqal ayagoo leh waana la dilay waana la xasuuqay iyo lafa soo saaray ma garatay ma jirto weliba xataa waxaa waaye taasi waxay raalli ku yihiin in weliba si nabada la iskula joogo ma sha Allah waa dad la karama marka dadkan marka waa dad qiimo leh waaye waana dadkan u baahnayn oo go'doon bay nooga jireen haddaan nahay Soomaali marka aniga waxaan ku talinayaa
qof walba oo Soomaali ah oo damiir leh inuu uu garab istaago yani maamulka awdal صح si ay u hana qaado haday ciidan u baahan yihiin inaan ciidan u hibayno haday dhaqaalo baahin dhaqaalo laftooda Soomaalida ay la bixisaan la axmedo way u baahan yihiin inaan garab istaagno bravo bravo ma sha Allah ileen waa nuurki moogtahay صح jahligu waa mugdi moogtahay صح cilmigana waa nuur moogtahay صح nimankan waa niman la tartami kara adduunka صح nimankan reer awdal صح marka waa niman aan kala jeclayn ummadda Soomaaliyeed qabiilka doonto aho waa ogta adiga oo jaamacadooda ama sibca waa qaras dhulkooda waa ka soo shaqeeyay waliba waa ka soo shaqeeyay dad al heli kara exactly yani marka aadaan ugu faraxsanahay waxa dhacay yani waa inaan garab siinaa waa in aan garab xoog la siinaa oo hiil iyo hooba leh maaragtay haddii ay u soo hajuumaan ninkaas ilaan waxaan waa jabhade waa nimankan waa jaajuusiin ma ogtahay maamulada haysto haddaa garanayso taariikhdooda hadii kaleba mar hadda ka hor la waraystay muuse biixi uu ka hadlayay taariikh nololeedkiisa wuxuu dhahay markii aan imi buu dhahay Ethiopia waxay qaabiluu dhahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia markaas wuxuu yiri uu dhahay ma ogtahay inaan ku naqaano oo ahayd ciidamadii cirka Soomaaliya waa isku naxay buu dhahay yaa macnaha waa